kulankan ay soo abaabuleen hay'adda horumarinta warbaahinta Soomaaliyeed ee Hayaan Media Development ayaa wariyaashii iyo mas'uuliyiintii dawladda ee ka qayb galay maanta ay si weyn u muujiyeen sida ay uga xun yihiin dhibaatadii shalay ka dhacday magaalada Muqdisho ee sababtay dhimashada iyo dhaawaca dad muhiim u ah bulshada oo aan waxba galabsan kuwaas oo isugu jiray dhaqaatiir wariyaal mas'uuliyiin dawladda iyo ardaydii wax ka baranaysay jaamacadda Professor Maxamed Cumar Dalxa oo gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee baarlamaanka iyo xildhibaanad Aamina Maxamed Mursal sidoo kale Cabdi Xafiid Saciimka oo isna ah wariye ka howlgala magaalada Muqdisho ayaa muujinaya dareenkooda sida ay uga xun yihiin dhibaatadii ka dhacday magaalada Muqdisho shalay marka ugu horeysa waxaan la qaybsanayaa tacsiyada iyo murugada si guud ahaan wada hareysay dhammaan bulshada Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan taasoo la xiriirta dhacdadii shalay hotelka Shaamow ee ay ku dhinteen dad qaali ah ee bulshada Soomaaliyeed ugu fadhiya qiimo aan la soo koobi karin kuwaasoo iskugu jiray mas'uuliyiin dawladda oo xilalka ay hayaan ka sokow ahaa dad qaybaha dadka ummadda Soomaaliyeed ugu qiimaha badan ee iyada ay ku tiigsato ee dhinaca aqoonta dadkii ugu jiray dawladda federaalka rakamida sidoo kale dhaqaatiirtii qiimaha lahaa ee macallimiinta ka ahaa jaamacadaha gaar ahaan kulliyadda caafimaadka ha u badnaadaan waxaan kaloo cambaareen u soo jeedinayaa wixii falkaas waxashnimada ahaa geestay oo u geestay mataqaanaa nimankii dhalinyarada ahaa oo u geestay nimankii waxgaradkii meesha iskugu yimid wiilashii jaamacadda ka soo baxeen dhaqaatiirtii wasiiradii aad ayaa lagu xumahay anoo ku hadlaya magaca gabdhaha Soomaaliyeed mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay tacsi ayaa mataqaanaa buuran ayaan rabnaa inaan u dhigno baroordiiq qarno inaan u sameeyno shacbiga Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa meel kasta uu joogo arintan waa arin lama iloobaan ah waa inaan isugu tagnaa nimankan waxaan geestay waa inaan ku jihaadnaa meel kasta oo joogtay Soomaaliya waxa idin leeyahay gacanta isqabta waxaynu markaasi leenahay madinta waa Allah sida markaas shiiqalo uu sheegay waxaan kamid ah wariyaasha iyagoo magaalada Muqdisho markaas ku haray iyagoo ku dhiiraday inay markaa ku sii shaqeeyaan waxaana markaasi asxaabta imika geeriyootay ay markaa hayeen kuway ugu mudnaa ee aan had iyo jeer markaasi aan wada teegi jirnay gudahan bayna goobaha markaa xafladu ay ka jiraan iyo shirarku ay ka jiraan gaar ahaan Khalid Maki Haji oo isagu cameraman Universal ahaa oo imika markaa dhaawacmay Maxamed Ismuudey boqorka bartamaha oo aad ogtiin in isla markaa dhaawac uu soo gaaray sidoo kale waxa markaa dhaawacmay wariyaal kale oo imika markaasi soo baxay oo soo korayay waxa geeriyooday baadii saxaafadda kuwada ugu mudneed gaar ahaan anigu markaas aan oran karo waxay ahaayeen kuwii garbeega markaa qabtay oo inaan ku soo biiro saxaafadda suurta galiyay Allah yarxameena walaalkay Xasan Sumeer Xaji Xasan fantastic iyo sidoo kale Maxamed Amin Aadan Cabdulle oo markaas saaxiibo gaar ah aynu ahayn runtii badinta waa Allah halka loo dambeyn doonana waa halkaasi waxaynu ku shaqeynaa dhibaatooyin fara badan isla markaana waxaynu wali ku dhiiranaynaa inaan ku sii shaqeyno Allah yarxam rahimin marka laga soo tago baroordiiqdan ujeedada kale ee munaasabadan Hayaan Media Development ayaa waxa ay ahayd oo xambaarsan tahay sidii loo horumarin lahaa warbaahinta Soomaaliya loona heli lahaa warbaahin dhab ah oo xirfadaysan iyo sidii shaqooyin loogu abuuri lahaa wariyaasha Soomaaliyeed ee ku nool Afrika iyo Yurub Cabdiwali Ibrahim Aadan Garyare oo kamid ah howlwadeennada hay'adda warbaahinta ee Hayaan Media Development iyo Ali Muuse Cabdi oo isna ka tirsan AFB Mawlid Xaaji Cabdi oo ah agaasimaha SBC ayaa ka hadlaya horumarinta saxaafadda Soomaaliyeed iyo sida loo abuuri karo marka si aanu u gaarno horumarinta ama kamera dhalinta warbaahinta Soomaaliya iyo madax banaanideena ayaan shirkan u soo abaabulay waxaanu shirkan uu ahaa midkii ugu horeeyay ee Hayaan Media Development ay ku qabato Afrika waxaana wajigiisa labaad uu shirkan uu ka dhici doonaa wadanka Netherland bishan aanu ku guda jirno hadii Ilaahay yiraahdo waxaana sidoo kale ujeedada ugu weyn aanu leenahay tahay
horumarinta marka laga hadlayo waa sidii kor loogu qaadi lahaa waxbarashada saxafiyiinta Soomaaliyeed ee ku kala nool meel kasta oo dunida kamid ah hadii ahaan lahaa Yurub kuwa jooga kuwa Afrika jooga gaar ahaan wadamada dariska la Soomaaliya iyo Soomaaliyaba iyo sidoo kale sidii loogu heli lahaa barnaamijyo lagu maareynayo wariyaasha qurba joogta ku ah wadamada sida geeska Afrika ku nool ee waxbarasho ahaata ama shaqo gelinba oo shaqadoodii waayay oo ka soo cararay taas ayaa ugu muhiimsanad runtiina wuxuu shirku ku dhamaaday si jawi wanaagsan waxa ka soo qayb galay madaxdii dawladda qaybaha arrimaha bulshada oo dhamaantood aan uga mahad celinayo waqtiga qaaliga ay u soo hureen inay kala soo qayb galaan munaasabadaasi Hayaan Media Development iyo sidoo kale warbaahinta telefishinka Universal Al Jazeera iyo warbaahintii kale ee goobtaasi ku sugnay sida VOA oo kale waan u mahad celinayaa waxaan leeyahay kankiisa kale waxaan ku gaari doonaa horumar dhab ah oo warbaahinta Soomaaliya ku tilaabsatay iyo madax banaani ay si rasmi ah u hesho darteed Hayaan Media waxaan leenahay waxa weeyaan fikrad cusub oo marka keeni karta inay suxufiyiinta dalalka ay joogaan iminka ay magangalida ku joogaan ku nool inay xirfadoodii aanay meesha ka tagin oo lagu qasbin inay marka halkaasi ay ka qabtaan shaqooyin aan la talaabsan karin kuwii ay markii hore iyagu ay hayn jireen waxa kale oo aan u mahad celinayaa horta marka Hayaan Media markaan xuseynaan dawladda iyo shacabka Netherlands aan u mahad celino maartay iyo dawladaha kale oo dhan ba waliba UK oo hadda aniga aan ka imid ilaa 10 saxafi in ka badan baa joogta marka laga rabo intii hore u shaqeyn jirtay Sweden sidoo kale dhowr iyo 10 baa joogta saxafiintaasi waxa xirfadda saxaafadda ku jira marka kulligood isku daro kontanka ku dhow 10 in ka yar baa ku jirta inta kale waxay halis ugu jiraan inay maskaxan guuraan ba xirfadda saxaafadda ka guurto 2 sano kadibna waxa soo bixi doonta saxafiintaas in aan la dhihin ba xirfadda saxaafadda way leeyahay taasna waxa ugu wacan access ka ay ku hawlgal lahaayeen ayaan jirin marka waxaan rajaynaynaa initiative-da Hayaan Media inay tahay in muxuu hayto yani laga sameeyo horumar arintaasi Xamdi Maxamed Kadiye Universal TV Nairobi